maxamed cabdi oo wararkan isku soo duway ayaa qadab ku jira. maxamed aan ku bilowno qodobada wararka ugu waaweyn. fariin uu soo gudbiyey hogaamiyaha ruuxiga ee wadanka Iiraan Mujtaba Khomeini oo ku aadan munaasabada toddobaadka cadaaladda ayuu ku ballan qaaday inuu maxkamadayn doono dowladda Mareykanka iyo Israa'iil dagaalkii ay dhowaan ku qaadeen wadanka Iiraan February 28-keeda taasoo horseeday dhimashada aabihii oo ahaa hogaamiyihii hore ee ruuxiga ee wadanka Iiraan Ali Khamenei iyo hogaamiyaashii iyo taliyayaashii militariga iyo siyaasiyiinta ahaa. warqad uu soo gudbiyey ayuu ku sheegay in dembiyadaasi iyo dembiilayaashaasi ay waajib tahay in la ciqaabo oo la maxkamadayo. hogaamiyaha ruuxiga ayaa sidoo kale sheegay in Mareykanka iyo qaar ka mid ah saraakiisha Israa'iil iyo kuwa Mareykana ay xataa ku faanayaan dembiyada ay galeen, waxaana shaki ku jirin in ay qirteen inay howlahaasi kas iyo maag u fuliyeen. wuxuuna ku nuuxnuuxsaday in kuwa mas-uulka ka ah dhimashada dadka dhibanayaasha ee labada sano ee lasoo dhaafay, gaar ahaan hogaamiyihii hore ee ruuxiga ee wadanka Iiraan Ali Khamenei, ay waajib tahay in la maxkamadeeyo. wuxuuna sheegay sidoo kale waxaa waajib ah in dabagal lagu sameeyo maxkamadaha maxalliga Iiraan iyo kuwa caalamiga ah. wuxuuna hoosta ka xariiqay in xukuumadda Iiraan ay aad u dhaleeceynayso reer galbeedka iyo nidaamka cadaaladda ee caalamiga oo uu ku eedeeyey inay u janjeeraan dhinaca Israa'iil iyo Mareykanka. arrintani waxay kusoo beegmaysaa markii ciidamada ilaalada kacaanka ay xaqiijiyeen toddobaadkii lasoo dhaafay Khamenei inuu mar horeba amar ku bixiyey in wadaxaajood lala galo dhinaca wadanka Mareykanka. wasiirka arrimaha dibadda Iiraan Abbas Araghchi ayaa ugu baaqaya Israa'iil in ay ciidamadeeda kala baxdo deegaanada ay ku jirta ee wadanka Lubnaan. wuxuuna sheegay dowladda Mareykanka ayaa mas-uuliyad buuxda arrintaasi ay ka saaran tahay oo xaqiiqsanaysa in ciidankaasi ay baxaan. waxaa sidoo kale uu dalbay in lasoo afjaro howlgallada Israa'iil ka wado Lubnaan, wuxuuna ku dooday joojinta colaadaasi ama colaadaha dhinacyada dhan waa qodob muhiim ah oo ka mid ah isfahamkii dhowaan lala saxiixday wadanka Mareykanka. Araghchi ayaa sheegay inaynan doodi ka jirin howlgalka Iiraan ay ka wado marinka Hormuz iyo in ay wado howlo la xiriira maareynteeda. welina waxaa jira tillaabooyin ka baxsan isfahamkii oo xadgudub ku ah heshiiska. wuxuuna intaasi ku daray badda Hormuz oo ah bad istiraatiiji ah si caadi ayay kusoo noqonaysaa marka caqabadaha hadda taagan laga leexiyo. Araghchi ayaa hadlayay isaga oo ku sugan magaalada Baghdad oo booqasho ku maray, wuxuuna xaqiijiyey in Iiraan ay ka go'an tahay inay ballaariso xiriirka istiraatiijiga ee Ciraaq la leedahay. wuxuuna ku ammaanay xukuumadda Ciraaq in ay cambaaraysay weerarkii Iiraan lagu qaaday. xildhibaan ka tirsan ururka Xisbullah Xasan Fadlallah ayaa digniin ka bixiyey xaaladda wadanka Lubnaan oo ku sheegay in laga yaabo in colaad wadanka gudihiisa ay ka dhacdo la xiriirta heshiiska Israa'iil ay dowladda la gashay. ururka Xisbullah ayaa ku gacan seeray in heshiiskaasi la meel mariyo. heshiiskaasi oo lagu saxeexay magaalada Washington ee dalka Mareykanka maalintii Jimcihii, kadib markii 4 wareeg oo wada hadal ay yeesheen Israa'iil iyo xukuumadda Lubnaan, ayaa ujeedadiisa in dhabaha loogu xaaro heshiis nabadeed in la dhex dhigo Israa'iil iyo Lubnaan oo uu ku jiro qorshe ah in Xisbullah hubka looga dhigo. Fadlallah ayaa hadalkan jeediyey maalin kadib markii madaxweynaha wadanka Lubnaan Joseph Aoun oo madaxweynaha Mareykanka uu telefoon kula hadlayay u sheegay in Lubnaan ay ka go'an tahay inay qaadato ama gudato waajibaadkeeda ah inay meel mariso heshiiska la saxiixay. 5 Falastiiniyiin ayaa la dilay, 43 kalena waxaa lagu dhaawacay duqeyn xagga cirka ah oo Israa'iil ay ka geysatay marinka Gaza ilaa 24 saac lasoo dhaafay, sida hay-adda caafimaadku ay sheegtay. waxaa sidoo kale la sheegay in tirada ugu dambeysa
dadka la diiwaan geliyey wixii ka dambeeyey xabad joojintii dhaxal gashay Oktoobar 2025 ay gaartay 3,372 ay ku dhaawacmeen. waxaa kaloo warbixinta lagu sheegay 786 meyd in laga soo saaray burburka hoostiisa guryihii la qarxiyey ilaa intii xabad joojintu ay bilaabatay. wasaaradda caafimaadka Gaza ayaa sidoo kale sheegaysa in qaar ka mid ah dadka dhibanayaasha ay ku hoos xaniban yihiin burburka hoostiisa, welina hay'adaha gurmadka degdega ay ka shaqeynayaan sidii dadkaasi ku gaari lahaayeen. Israa'iil ayaa cusboonaysiisay inay duqeyn ka geysato koonfurta Lubnaan sida warbaahinta lagu sheegay, halka dhimashada hal qof oo ka mid ah askarta ururka Xisbullah la sheegay inuu geeriyooday 2 maalmood kadib markii heshiiska uu Mareykanku garwadeenka ka ahaa ee xukuumadda Lubnaan lala gaaray la saxiixay oo ay saxiixdeen Israa'iil iyo Lubnaan. ururka Xisbullahna ay diidan tahay. arrintan ayaa waxay kusoo beegmaysaa maalin kadib markii hal qof lagu dilay duqeyn xagga cirka oo Israa'iil ay ku qaaday koonfurta Lubnaan, iyadoo wasaaradda caafimaadkuna ee Lubnaanna ay sheegayso halka wakaaladda wararka ee rasmiga ah ee waddanka Lubnaanna ay sheegtay in dhowr weerar oo Israa'iil ay soo qaaday ay dhaceen. militariga Israa'iil ayaa sheegay inay mar horeba u weerareen dagaalyahanada ururka Xisbullah kadib markii ay arkeen ayagoo dhaqdhaqaaq sameynaya inay burburiyeen goobihii ay gantaalada kali lahaayeen. waa sida hadal ku dhigeen. wararka caalamkana waxaa ka mid ah diyaarad helicopter ah oo ay leedahay shirkadda shidaalka ee Aramco ayaa ku burburtay deegaanka la yiraahdo Ras Tanura xeebaha waddanka Saudi Arabia. 14 qof muwaadiniinta Sacuudiga ee diyaaraddaasi saarnaa ayaa gebigoodba dhintay sida laga soo xigtay warbaahinta rasmiga. dowladda Sacuudiga warbaahinteeda ama wakaaladdeeda wararka ayaa sheegaysa in xukuumadda ay bilowday baaritaan la xiriira sababaha keenay shilkaasi iyo burburka sababaha uu ku yimid. shilkaasi ayaa imaanaya in yar kadib markii Aramco ay dib u bilowday in ay shidaal ka rarto deegaanka la yiraahdo Ras Tanura oo ahaa goob la xiray 4 bilood ka hor markii dagaalka Israa'iil iyo Mareykanka ee ka dhanka Iiraan la qaaday. goobtaasi dib u furiddeeda ayaa waxaa ku soo beegmay baa leeyahay iyada oo gaaskii dibadda loo dhoofinayay iyo shidaalkii wadamada gacanka oo saliidda soo saaray ka shaqeynayaan in maraakiibtii muddada dheer xanibnayd ay u diraan in ay ka gudbaan meeshaas, isla markaasna heshiiska xabad joojinta intii uu meel marayna la isku dayayo in maraakiib badan ay ka gudbaan. dhimashada dadkii wax ku noqday dhulgariirkii labada ahaa ee Venezuela ayaa gaaray 1,400 oo qof, iyadoo badbaadiyayaal ajnabi ah ay ku sii qulqulayaan waddanka Venezuela. xukuumadda ayaa waxa ay sheegaysaa in dadka ka samata baxay goobaha aadka u burburay weli la raadinayo. tiradan cusub ay la soo saaray ayaa soo baxday kadib markii dadaal badan ay muujiyeen dadka badbaadiye ee deegaanada La Guara iyo qaybo ka mid ah magaalada caasimadda ee Caracas, iyadoo faamiliyada iyo dadka gurmadka degdega ah ay saacado badan ay ka shaqeynayeen sidii dadkaasi ay uga soo saari lahaayeen burburka hoostiisa. qaar badan ayaa ka cabanaya dadka inaynan haysan qalab ku filan oo ay ku qodaan burburka ku habsaday dadkaasi. tahay maxamed, waa mahadsan tahay. daawadayaashuna way mahadsan yihiin. waxaan u gudbaynaa daawadayaal falaqaynta wararka iyo wixii warah ee degdega ee soo kordhaha yeeshee aynu ku hakanno qadar xayeysiina. ku soo dhowow macadka barashada diinta islaamka ee Marso. waa muhiim aqoontu diintaana ugu mudan iyo mufti inaad ahaatee mar u kaalay macadka Marso. barbaarinta wanaagsani waa adigoo ilmahaaga bara diinta islaamka oo uu ugu weyn yahay qur-aanka kariimka. macadka barashada diinta iyo culumta islaamiga ah ee Marso waxaa lagu bartaa qur-aanka kariimka, hikaada, carabiga, tajwiidka iyo toosinta qur-aanka, afka Soomaaliga iyo ducooyinka. waxaana kugu diyaara macallimiin khibrad fiican. waxaadna helaysaa 7 tijaabo ah
oo lacag la'aan ah iyadoo ardayga la siinayo shahaado marka uu dhammeeyo isqoristu waa ay socotaa waxaadna faahfaahinta ka badan ka heli kartaa telefoonnada shaashadda saaran adigoo la xidhiidha Somali Meat Company hilib saafiyo sugan oo la hubo waa Somali Meat Company Somali Meat Company waa shirkadda ugu weyn hilibka Soomaaliya waxaana ay ku howlan tahay inay gaarsiiso hilib tayadiisa caafimaad la hubiyay soona maray baaritaanno caafimaad oo guulaystay waa mid ka mid ah warshadaha ugu waaweyn bariga Afrika iyadoo leh qaybaha warshadda hilibka geela warshadda hilibka looda warshadda hilibka ariga iyo warshadda lafa bixinta hilibka waxaana ka howlgala shaqaale aqoontooda iyo xirfadooda aad loo diyaariyay soona maray baaritaanno caafimaad Somali Meat Company waxay sidoo kale hilibka u dhoofisaa dalalka dibadda sida dalalka Afrika Khaliijka dhawaanna waxa ay geyn doontaa dalalka Yurub waxa ayna haysataa shahaado hilib oo caalami ah sida Halal Certificate iyo ISO Certificate shirkaddu waxay Muqdisho ku leedahay ilaa iyo 6 goobood si dadka loo gaarsiiyo adeeg hilib oo fresh ah haddaba booqo xarumaha kala duwan ee Somali Meat Company ama la xiriir ciwaanada shaashadda kaaga muuqda soo dhawaada mar kale daawadayaal wali waxaad la socotaan barnaamijkii wararka caawa maxamed aan ku bilowno xalay iyo habeen hore labadaba weerar iyo weerar celis baa dhacay Mareykanku waxay duqeeyeen deegaano ku yaala koonfurta waddanka Iiraan gaar ahaan jasiiradaha Hormuz sida daawadayaasha aynu la socodsiinay Iiraan waxay duqeysay saakay waa berigii ilaa iyo xalay saqdii dhexe ilaa iyo 8 saldhig oo Iiraan ay leedahay arrintan maxay ka macno tahay Mareykanku wuxuu leeyahay Iiraan waxay weerartay maraakiib Iiraan waxay leedahay xadgudub uu ku sameeyay xabajoojinta waxaana ka fiirsanaynaa heshiiska inaan ka baxno Mareykanka in la galnay maxaa ka cusub arrimahan laba dhinac ayay leedahay gabar hore u ahaan jirtay safiiradda waddanka Mareykanka oo Barbara Leaf la yiraahdo ayaa sheegaysa in isfahamka u dhaxeeya Mareykanka iyo Iiraan ee dhawaan la saxeexay in uu yahay mid aad iyo aad u nugul ayna ku doodaysaa xiisadan hadda soo cusboonaatay waxay ku eedeynaysaa in ay ka timid falalka waddanka Iiraan Miss Leaf ayaa waxa ay sheegaysaa Iiraan ayaa marka hore hadallo hanjabaada u jeedisay waddanka Oman oo caawinayay maraakiib isku dayeysay inay marinka gudubto ka hor inta Iiraan ay go'aansan inay weerar ku qaado maraakiibtaasi marinka Hormuz mareysay ku-xigeenkii hore ama kaalihii hore ee xogayaha arrimaha dibadda ee waddanka Mareykanka ayaa waxa uu sheegay in xabad joojinta heshiiska laga gaaray waa gabadhaas laftirkeeda ayaa kaaliye ahaan jirtay heshiiskaasi la gaaray inuu si cad u cadeynayo in waddanka Oman uu qayb ka yahay amniga wadda Hormuz waxaanan wax ka soo qaad lahayn in Iiraan ay rabto in ay u maareyso biyaha waddanka Oman iyo maraakiibta maraysa waxa ay sheegaysaa Mrs Leaf oo cambaaraynaysa fariimaha Iiraan ka soo baxaya oo rabta inay la wareegto biyahan istiraatiijiga ayaa sheegtay Iiraan waxa ay bilowday kadib markii heshiiska la saxeexay in ay la wareegto mustaqbalka biyo mareenka Hormuz cid caalamka ka tirsan oo aqoonsanna ma jirto arrintaasi iyo mowqifkaasi halka hoosta laga xariiqayo in heshiiska luqadda ku qoran uu yahay mid aanan si qumaati u carabaabeyn arrimahaas oo maldahan Miss Leaf ayaa sheegaysa in dhexdhexaadayaashu ay erayadaasi u isticmaaleen in xaaladda military iyo xaaladda dagaal ee colaadeed ee markaas socotay sidii lagu qaboojin lahaa albaabkana loogu furi lahaa wadaxaajood muddo dheer la gaaro oo waxaana wadaxaajoodka ka mid ah barnaamijka nuclearka ee waddanka Iiraan waa sidee hadalka u dhigaysa gabadhaasi ahaan jirtay kaaliyaha xogayaha arrimaha dibadda ee waddanka Mareykanka safiirna ahayd waa gartay dhinaca kale waxaa la leeyahay meesha waxa ku jirta wax la yiraahdo is-aamina darro maxaa loola jeedaa is-aamina darrada aqoonyahan Iiraani ah ayaa sheegaya in is-aaminaad la'aan weyn ay jirto oo horseeday in uu burburo wadaxaajoodkii dhex maray Mareykanka iyo Iiraan inta aan xataa la gaarin 60 maalmood ayaa qarka waxaa loo saaray in heshiiskaasi burburo Mustafa Khosh Hashim oo macalinka ah jaamacadda Tehran
ayaa waxa uu leeyahay waxaan shaki weyn ka qabaa in heshiiskaasi gabi ahaanba uu shaqeynayo, maxaa yeelay waxaa cad in dowladda Maraykanku ay doonayso oo keliya inay dib u furto marinka Hormuuz. wax inta dhaafsiisan oo Maraykanku uu rabay lama arko. Khosh Hashem ayaa sheegaya in dhexdhexaadiyaasha Iiraan ay aad oola dhacsanayn in wada hadal lala galo wadanka Maraykanka. dhowr goor ayayna sheegeen in gorgortan walba marka la fiiriyo Maraykanka sida u dhaqmayo in wada xaajoodyada natiijada ka dhalatay heshiiskii 2015 la gaaray ee JCPOA oo Donald Trump jeexay wada hadaladii ugu dambeeyayna 2 goor ayaa Maraykanku uu duqeyn geystay oo miiskii wada hadalada ayadoo la fadhiyo uu duqeyn geystay. su'aal weyn ayuu ka keenay dhaqanka madaxweynaha Maraykanka ayaa khatar ku ah Iiraan oo weli waxaad moodaa in uu leeyahay Iiraan ayaan burburin doonaa. ma waxaasa lagu dhisi karaa is-aaminaad? xaqiiqada dhabta waxay tahay saraakiisha sarsare ee wadanka Iiraan sida khabiirkan hadalku dhigayo iyo dhexdhexaadiyaasha dhowr goor ayay si buuxda u sheegeen in wada hadaladani ay Maraykanku kula jiraan oo ku socdo is-aaminaad la'aan dhanka Maraykanka ka jirta sida Khosh Hashem oo hadalku dhigayo. dowladda Maraykanka dhowr goor ayaa xabad joojintii ku xadgudubtay waana adag tahay in lala shaqeeyo. suuragalna maba ahaba in lala shaqeeyo si Iiraan kalsoonideeda loo dhiso. wada xaajoodyada waxay u baahan tahay shaqo badan. waa gartay waa yahay dhinaca kale aynu ka eegno markaa Trump waa hanjabaya horay dagaalku intuu socday waa asigii yiri Iiraan gabi ahaanba waa burburin doonaa, casri jaahiliga waan ku celin doonaa, naartan ku soo dayn doonaa. waa si hadalku u dhigay walow naarta gacantuusan ku hayn, laakiin hadda wuxuu leeyahay jiritaankeedaaba dhammaanayaba Iiraan hadda laga bilaabo. arrintaas maxay khibrada ka leedahay? madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa weli wada hanjabaad bayaano ah uu bartiisa ku qorayo oo ka dhana wadanka Iiraan. mid ka mid ah lafagurayaasha ayaa sheegaya waxaasi yaana dhab loo qaadan. arrintani waxa ay imaanaysaa ama waxay soo gaartay heer uunan sheegayn wax suuragal ama maangal ah. waxaana muuqata in uu qorayo militariga Iiraan xog ayaa lagu muquunin doonaa, shaqadaasina guul ayay ku dhammaanaysaa. hadday taasi dhacdo qofku wax qoraya oo madaxweyne Trump jamhuuriyadda islaamiga ma jiri doonto. Trump bartiisa social media ayuu waxaas ku qoray. Wolfgang Bustey oo ah nin lafagura arrimaha gaashaandhigga horena uga tirsanaan jiray militariga wadanka Austria ayaa waxa uu sheegayaa Trump waxa uu sheegayo wax u adeegaya ma aha danaha Iiraan iyo dhegeystayaasha caalamiga ah ee la socda arrintani. waxaani wuxuu ugu talagelayaa dadka Maraykanka bayaanadan uu qorayo. horaana loogu yaqaanay ninkan in waxyaabo saas camal qoro, sida uu wax u qorayana in loo qaato ma aha. waxaan sheegayo waxa weeye uu leeyahay khabiirkani hanjabaada noocan oo kale ah waa lagu yaqaanaa madaxweynaha Maraykanka. asaga laftirkiisa waa ogsoon yahay in cadaadis dheeraada oo military ama dagaal haddii lagu qaado Iiraan ama duqeyn dheeraada loo geysto inaan Iiraan waxba yeelin oo ogyahay. waxa uu leeyahay Trump fariimahan uu dirayo waxa ay kordhinaysaa, waxaan kordhinayaa cadaadiska militariga ka dhanka wadanka Iiraan ama waxaan kordhinayaa cunaqabataynta Hormuuz. wax weyn maaha. waxaana hubaala in arrintani khatar ku tahay wadamada gacanka oo laga yaabo in dagaalka mar labaad lagu soo jiido. madaxweynaha Maraykanka iyo hadallada uu jeedinayo intaas ayuu ka yiri khabiirkaasi. laakiin aniga dhankayga haddii aan fiiriyo khabiirada kale ee Maraykanka ayaa sheegaya haddii heshiiskan uu burburo in Maraykanka ay dan ugu jirto in uu dagaalka Iiraan joojiyo oo ciidankiisa ka soo kaxaysto gobolka Bariga Dhexe ayadoona afka lagu ballaarin. ayaa Maraykanku mar hore u bilaabay inuu ciidamadiisa meesha ka gurto. barnaamij gaar ah oo aan sameynay ayaa lagu soo bandhigayaa warbaahinta
israa'iil qaar ka mid ayaa qoraya saldhigyadiisii qaar ka mid ayuu u soo rarayaa israa'iil sababtoo ah khatarta ka dhalatay u dhawaashaha xuduudka oo wadanka Iiraan ayaa khasaare xoog la keenay arrintaasna waxaad moodaa tartiib inay soo disayso Iiraanna waxaad moodaa khadkeeda in ay haysato oo Mareykanka ay waxba ka maqlaynin nidaamka dagaalkana cidda ka carartay oo nabadda raadinaysa waa Mareykanka hadalladan uu sheegayo Trumpna Iiraan marka ay kulanka timaado ayay sheegtaa hadalkan ma hadalkii Trump ba ama soo hadal dawladda Mareykanku ay leedahay labadooda lama kala yaqaano wixii ay ogolaatay iyo wixii ay ku heshiisay Mareykanku ilaa ay hadirtaan waxa Iiraan ay ku eedanaysaa inayna fulin lana aamini karaynin dhowr goor horena Iiraan waa ka hadashay haddana mas'uuliyiintii ugu sarsareysay ayaa ka hadlaysa waxa soo kordhay ayaa waxay tahay in Iiraan ay maxkamadeynayso dadka mas'uulka ah dilka hogaamiyihii hore ee wadanka iyo mas'uuliyiintii kale ciidanka iyo siyaasiyiinta ah وهجاك محمد أدباد ومحسن تهي داود ياشر mahadsan إتا أيام كسو جبجبيننا عاو برنامجك داود سي عدو لصعته وركن إيو برنامجدا إيو معلوماتك أي نسو قد بينه هدي أتكو عصب تهي برهي أن بالشدا أما هوري آذان وحرنين هذا كسو بيه أي نو برنامج كحيقة إن شاء الله إنت كهر رئيسة